ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay degmada Bu'aale ee gobolka Jubbada Hoose ay dagaal adag kula galeen koox ka tirsan maleeshiyaadka nabadiidka ee Al-Shabaab uu hogaaminayay Horjooga Cali Dheere oo ah afayeenka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. dagaalka maanta ka dhacay degmada Bu'aale ciidamadu waxa ay gacanta ku dhigi rabeen horjoogaha kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab afayeenka u ah Cali Dheere waxayna ciidamadu ay sidoo kale dhaawaceen ilaa 79 maleeshiyaad ah oo ka tirsan argagixisada Al-Shabaab. dagaalka ugu cuslaa oo maanta ka dhacay tuulooyin hoostiga degmooyinka Jilib iyo Bu'aale ay ciidamadu waxa ay ku guuleysteen inay qaarijiyaan 180 ka tirsan nabadiidka Al-Shabaab. sidoo kale dagaalka waxa qayb ka ahaa diyaaradaha dagaalka ee dawladda Soomaaliya ka taageera dhanka cirka ay leeyihiin wadamada caalamka. sidoo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa burburiyay maxkamadii ugu weyn ee nabadiidku ay ku lahaayeen tuulooyin hoostiga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. waxayna sidoo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo wata gaadiid aad u tiro badan oo kuwa dagaalka ah ay dardareen difaacidii ugu weynaa nabadiidku ay ku lahaayeen deegaanadaas. warka aynu haatan ka helayno gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay sheegayaan in duqeyntii ugu cusleed ay ka socoto gobolkaasi qaasatan tuulooyin hoostiga degmooyinka Bu'aale iyo Jilib. waxayna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay maanta dagaal adag la galeen ciidan aad u tiro badan oo watay horjoogaha ugu sareeya dhanka afayeenkana ah ee argagixisada Al-Shabaab Cali Dheere. waxayna ciidamada sidoo kale ay gacanta ku soo dhigeen gaadiid dagaal oo ay wateen kooxda nabadiidka ah Al-Shabaab. dagaalka oo haatan ka soconaya tuulooyin hoostiga degmada Bu'aale ayaa waxay sheegayaan in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee guud ahaanba la wareegeen ama ay hareereeyeen degmada Bu'aale. waxayna sidoo kale ciidamadu waqtiyada soo socda ee gudaha u gali doonaan tuulooyin hoostiga degmadaasi. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee kuwa daraawiishta Jubbaland ayaa kaabiga waxa ay ku hayaan degmooyinkaasi. waxayna sidoo kale ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen feelal ay wateen ajaanib ka tirsan kooxda nabadiidka ah Al-Shabaab. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa haatan waxay u muuqdaan inay dib ugu xoreynayaan deegaanadii nabadiidku muddada fog ay gacanta ku hayeen. waxayna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee waqti xaadirkan ay howlgallo xoogan ay ka wadaan tuulooyin hoostiga degmooyinka Jilib iyo Bu'aale. dagaalka oo saaka ilaa haatan ka soconaya degmooyinkaasi tuulooyin hoostiga ayay waxay sheegayaan in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay dagaalka ku soo furteen qoryaha darandooriga u dhaca iyo qoriga loo yaqaano zabanka iyo qoryaha garbaha laga riday ee BTM-ka. ciidamada ayaa sidoo kale waxay soo qabteen 12 maleeshiyaad ah oo dhaawac ah oo ka tirsan argagixisada Al-Shabaab kuwaasoo howdka dhanka deegaano hoostiga degmada Bu'aale ka dagaalamayay. waxayna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay sidoo kale ay gacanta ku soo dhigeen gaadiid dagaal iyo dukumentiyo ay lahaayeen horjoogayaal ka tirsan nabadiidka Al-Shabaab. dagaalka oo si xawli ah uga soconaya tuulooyin hoostiga degmada Bu'aale ayaa waxay sheegayaan in ciidamadu ay saacadaha soo socda ay fooda gelin doonaan deegaanada lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaaleysanayaan kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. daawadayaal wixii ku soo kordha howlgallada sida weyn uga soconaya tuulooyin hoostiga gobolka Jubbada Hoose janalkeena ayaad ka daawan doontaan. hadduu fadlan kugu cusub yahay janalkeena subscribe inoo saar. markana haddaynu aadno tuulooyin hoostiga gobolka Shabeellaha Hoose qaasatan deegaanka Toorotoro ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo wata gaadiid aad u tiro badan oo kuwa dagaalka ah ayaa waxa ay gudaha u galeen deegaankaasi. waxayna ciidamadu haatan ay la hadlay ee baaritaano ay ka wadaan gudaha deegaanka Toorotoro. ciidamada ayaa ku raad jooga horjoogayaal ajnabi ah oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaaleysanayaan deegaanadaasi. waxayna sidoo kale ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen hub iyo saanado militari ee ka caray nabadiidka Al-Shabaab. dagaalka oo si xawli uga socday ama howlgalka oo si xawli uga soconaya deegaano hoostiga degmada Toorotoro ayaa waxay sheegayaan in ciidamadu ay guulo hordhac ka gaareen halgankii ay la galeen kooxda khawaarijta ah ee Al-Shabaab. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waayadanba waxa ay wadeen howlgalladii ugu xooganaa oo dalka looga sifeynayo kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab. waxayna ciidamadu ay sidoo kale howlgallo ballaaran ay ka wadaan degmooyinka tuulooyin hoostiga degmooyinka Masaajid Cali Guduud, Aadan Yabaal, Muqliga, Teedaan iyo tuulooyin hoostiga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. guud ahaan howlgallada oo si xawli uga soconaya gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka ay kaabiga ku hayaan deegaano dhawaan ay qabsadeen kooxda nabadiidka ah Al-Shabaab. xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa dagaalkan
horkacaya ama hogaaminaya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raagi waxaana taliyuhu haatan uu ku hogaaminaya deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Taliya Odawa ayaa amar degdeg ku bixiyay sida ugu dhaqsiyaha badan in deegaanadaasi gacanta looga dhigo kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab waxayna ciidamada oo filinaya amarka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku dhaqaaqeen goobo dhowr ah oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaalaysanayaan nabadiidka Al-Shabaab. Sidoo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa deegaano hoostiga aadan yabaal waxa ay ka hortageen weer nabadiidku ay doonayeen inay u adeegsadaan gawaarida ay ka soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa balse ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka feejigan dhagarta kooxda nabadiidka ah ayaa waxay si xeeladaysan uga hortageen weerarkii nabadiidku ay ku doonayeen inay ku waxyeeleeyaan fariisimo ciidamadu ay ku lahaayeen deegaano hoostiga gobolka Shabeellaha Dhexe. howlgaladan oo si xawli uga soconaya deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ay ciidamadu waxa ay ka gaareen guul aad u sareeya. sidoo kale Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe, gobolka Gado iyo guud ahaan gobolada Baay iyo Bakool ay ciidamadu howlgalada ay ka wadaan waxayna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen inay deegaano dhowr ah ay gudaha u galaan oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaalaysanayaan kooxda nabadiidka ah Al-Shabaab. markana hadaynu aadno goof guduud deegaano hoostaga oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed howlgalo ay ka sameeyeen oo ka tirsan gobolka Baay ayaa waxay sheegayaan in ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen horjoogayaal ka tirsan nabadiidka Al-Shabaab kuwaas oo ku dhumaalaysanayay deegaanadaasi. ciidamada ayaa sidoo kale waxay ku guuleysteen inay qaarajiyaan tiro gaaraysa ilaa 8 dhagarqabo oo ka tirsan nabadiidka Al-Shabaab ay ku dileen tuulooyin hoostaga deegaanka goof guduuda. sidoo kale duqeymo dhanka cirka ah ayaa waxa ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka Baay waxaana lagu bartilmaameedsaday horjoogayaal ka tirsan nabadiidka Al-Shabaab kuwaas oo ku shirsanaa guri ku yaala deegaano hoostaga gobolka Bakool waxayna nabadiidku ay halkaasi ku maleegayeen dhibaatooyin u geysanayaan shacabka Soomaaliyeed. howlgaladan oo si baaxad leh uga soconaya deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay sheegayaan in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay guulo hordhac ka gaareen waxayna ciidamadu ay maalmihii ugu dambeeyay gacanta ku dhigeen hubiya sanado military oo ka careen nabadiidka Al-Shabaab. sidoo kale Gandarshe, Dhanaane iyo Jilib marka ay ciidamadu ku dhaqaaqeen waxayna halkaasi ciidamadu ay ku guuleysteen inay gudaha u galaan iyadoona dhulka xeebta ah ee hoostaga deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ay ciidamadu howlgalo ballaaran ay ka wadaan. Gandarshe, Dhanaane iyo Jilib marka ay ciidamadu howlgalo ay ka wadeen tuulooyin hoostaga waxayna ciidamadu halkaasi ku guuleysteen inay ka sifeeyaan koox ka tirsan nabadiidka Al-Shabaab. xoogga dalka Soomaaliyeed oo si weyn u kaashanaya dadka deegaanka ayaa waayadii ugu dambeeyay waxay howlgalo ballaaran ay ka wadeen tuulooyin hoostaga iyo deegaano hoostaga gobolada dalka waxayna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka soo bilow gobolka Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose, Hiiraan, Baay, Bakool ilaa Jubbada Hoose ay ka wadaan howlgalo ballaaran oo lagu baaxsanayay nabadiidka Al-Shabaab. daawadayaal channelkan hadduu kugu cusub yahay fadlan subscribe inoo saar si aad ugala socoto xaaladda guud ee dalka.